waxaa maanta magaalada Xeego ee degmada Baki si rasmi ah ugu furmay shirweyne aad u balaaran oo loogu magac daray Barakaale oo isugu yimaadeen beelaha Habar Cafaan oo kamid ah beelaha deegaanka gobolada Awdal, Salal, Gabiley iyo wadamada jaarka ah Somaliland. furitaanka shirweynahan waxaa ka soo qayb galay dadweyne aad u tiro badan kuwaasoo isugu jiray siyaasiyiin, salaadiin, oday dhaqameedyo, indheer garad, aqoon-yahano, qurba joog, haween iyo dhalinyaro. munaasabadan furitaankeeda waxaa ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha magaalada Xeego Cabdilaahi Faarax Cabdilaahi Qayaad wuxuuna sheegay inuu ku soo dhaweynayo ergooyinka shirkan ka qayb galaya magaaladan inta uu socdana uu sheegay inuu wax badan uu la qaban doono. sidoo kale waxaa madashan ka hadlay caaqilka guud ee beelaha Habar Cafaan Caaqil Ismaaciil Axmed Geele, afayeenka beelaha Habar Cafaan Caaqil Cabdi Ciige Axmed Salsal, Professor Maxamed Xuseen Fariid, Suldaan Sheekh Muuse Cumar, Imaam Xaaji Axmed Miisaan, Maayarka Boorama Cabdiraxmaan Shidabile iyo Xaaji Maxamuud Jibriil Yoonise. waxayna dhammaantood sheegeen in shirkani uu yahay mid dhaqan kana madax bannaan siyaasad iyo arrimo kale ayna kaga tashanayaan wixii iyaga u danaa. waxa weeye gobolkeenan iyo goboladeen oo dhanba dalka Somaliland iyo Soomaaliya inteeda kaleba waxaan Ilaahay uga rajaynaynaa nabadgelyo. waxaan Ilaahay uga rajaynaynaa inay noqdaan dhul lagu soo yaaco oo khayraadka Ilaahay si lagala soo baxo. qabiilku uu jiray beesha Habar Cafaan leeyahay wuu jiri doonaa laakiin waxaan sida hore intaas dadka sidii intaas waxaan jeclahay inaad sanad walba saago kordhisay. waxay ummaddu ku kala hagana loo dhigo oo salka loogu dhigo wax ummaddu ay raacdo oo jiilka yaryar soo koraya sidaan u iri ay muxuu ahaa ku hirtaan waa mid loo baahan yahay. Habar Cafaanna aad iyo aad bay ugu baahnay sida la leeyahay. Habar Cafaan waxbay dabacday maaha, xumaan maaha, dhibaato maaha, waxa weeye faa'iido horseedno ina faa'iido horseedno weeye ujeedadayadu. shirka maanta aanu fadhino aan iskugu nimid waa inuu noqdaa mid aan ku xusuusano ayayna caruurteena maanta inoo dhalanaysa ay tidaadaa shirkii Barakaalan dhashay. maanta Habar Cafaan waa oday kaliya maanta una dhashay haddana markii labaad oo waa dhalmaday. waxa weeyaan oo ay ku jiraan barakada waa Cafaan kolkaan idhaa waa Cismaan bir Cafaan baan ku abtirsanaa inagu. rajo weynahay inuu noqdo shir xukuumaduna ay ka faa'iido midhaha ka soo baxa mid ka maxay heedaanay ku garab istaagi kara nabadgelyada, horumarinta, dhaqanka iyo dhaqaalahaba mid wax ka tari kara oo hadday ummadi wax qabsato iyaguna wax way qabsadeen xukuumadoodana wax way la qabteen. sidoo kale waxaa isna halkaasi hadal mahadnaqa iyo furitaanka shirka ka soo jeediyay suldaanka guud ee beelaha Habar Cafaan Suldaan Cabdiraxmaan Jaamac Dhawel waxa uuna ugu horeyn u mahadnaqay cid walba oo ka qayb qaadatay qabsoomida shirkani isagoo ka hadlay ujeedada shirkan. maalintii lay caleema saarayna hamidii gashay oo ahayd inaan shirweyne beelaha Habar Cafaan aan u qabto oo maanta Ilaahay noo suurta geliyay aad baan ugu faraxsanahay. shirkan waxa weeye gabaybaha timacada oran jiray wareer kama dhaxdo reer haddaan ururin waariyeen. waa ururin, waa baraarujin, waa isku xidh, waa midayn dadka wada dhashay beelaha Habar Cafaan lagu midaynayo ra'yigooda iyo runtooda iyo hantidooda iyo socodkooda iyo wax qabadkooda lagu midaynayo wey. wasiirka beeraha Somaliland Professor Faarax Cilmi Geedoole oo isna munaasabadan furitaankeeda ka qayb galay ayaa waxa uu halkaasi ka soo jeediyay hadallo taageera isla markaana wuxuu ku baaqay ilaalinta nabadgelyada iyo horumarka. inuu shirkoogaasi noqdo mid bilow ah oo keena in beeshu ay meel wanaagsan gaadho. waa mid tusaya ama beelaha Habar Cafaan waa mid tusaysa isku xidhnaantooda, wada dhalashadooda oo aanan ahayn mid maanta bilaabatay ee weligeedba soo jirtay noqon doontana mid weligeedba jiraysa danna u noqon doonta
ummadoo dhan. si kastaba ha haatee shirkan barakaale ee ka furmay deegaanka xeego ayaa noqonaya shirweynihii ugu weynaa ee beel ka mid ah beelaha dega gobolladani ay isugu yimaadaan tan iyo aasaaskii Somaliland waxaana laga filayaa inay ka soo baxaan arrimo badan oo faa'iido u leh bulshada ku dhaqan guud ahaan Somaliland. Cabdi Fataax Axmed, Somali Channel, magaalada Boorama.